maxaad ka taqaanaa ceelasha oonyood ee sabada sululeed ee geelu ka cabaan? haddaba sabadan sululeed ee geelu ka cabaan ayaa ah mid qoto dheer isla mar ahaantaasina ku weyn guud ahaanba geyga Soomaaliyeed, taasoo laga garan og yahay inta badan geyga Soomaaliyeed. haddaba sabada sululeed ee caanka ah ayaa waxaa looga kala yimaadaa ceelasha oonyood ee taariikhda fukul ee guud ahaanba geyga Soomaaliyeed goobo kala duwan oo deegaanka Soomaalida ka mid ah, waxaana maalintii ceelasha oonyood ka cabaa kumanaan kun oo geel ah kuwaasoo looga kala keenay goobo kala duwan isla mar ahaantaasina aad u kala fog. haddaba aanu wax uga ogaano taariikhda ceelasha oonyood ee caanka ah ayaa waxaanu wax ka weydiinay qaar ka mid ah odayaasha waxgaradka ku dhaqan degmada Sagag ee gobolka Nogob, kuwaasoo si qoto dheer uga warramay ceelasha oonyood taariikhda fog ay leeyihiin iyo waliba faa'iidada ay u leeyihiin geela. guur marka uu xaggan u socdo madax lagalama dagaali jirin, markuu galbeed u socdana madax lagalama dagaali jirin. ceelkan marka taariikhiisu waa sidaas. laba xilli uu isugu yimaadaa, labada xilli uu isugu yimaado waxa weeyaan waa gugi iyo dayrtii. xilligan aad aragta hadda geel meel kasta oo aagan uu ka soo gaari karo uu isugu yimaadaa, waadna aragtaan hadda kolkaad saa u fiirsan weli hadda waa madaxii waa dhowr maalmood hadda jir barwaaqo badanna sanadka waanu helay ilaa hadda waa laga yaabaa jilaalkii inuu sida ahaado. waxaan intaa ku dari lahaa dadkan xoolo dhaqatadiihi waa dad u baahan in la dhaqaaleeyo. hadda geel jiruhu aad hadda wuxuu meel la canshuuraya meel la kanaynaya, canshuurta xaq baa loogu leeyahay, bisheedina xaq baa loogu leeyahay in laga canshuuro. bishii la canshuuray bisheedii in laga canshuuro xaq waxay u leeyihiin wey. in geela noocaasa la dhaqaaleeyo oo dhakhtarku dhex socdo oo waxay u baahan yihiin hadda nirgaha oo kale intaa kurka way wada barisiin. hadda geela waxaa jira halkan ku xaraysan oo nirgihiisu hadda nirgihii guga dhashay ee kurusku inta la wada macal halkaas dhuuntay ku bareen. hadda 800 bir baan hadda daawo anigu ugu diray xafiiska xoolaha. waxaan ka codsan in dadaal dheeraada la sameeyo oo xilliga sidan oo kale uu yahay ay sidan tahay la isugu yimaado dhakhaatiir xoolaha ee geela ka shaqeysa in la keenan ka codsanaya xafiiska xanaanada xoolaha. aad iyo aad bay wanaagsan tahay. waa meel dadka iyo dunyada tayo u leh, caafimaad u leh. ciidan aad aragtay iyo makhluuqan oo dhammaanteed sida caafimaadka kale u soo tageen oo maaragtay sida jeelbaxa ama magaaga waxa la yiraahdo Soomaalidu af Soomaaligu way farabadan yahay moogta. marka ayay u soo doontaan ruux waliba wuxuu u soo doonto uu ka helaa meesha caanaha, biyaha, daaqa, maaragtay dadka la jooga wax farabadan bay meesha laga helaa. meeshaan waxaan ka qabtaa midda koobaad waxaan ku kariyaa cuntada kariyaa sida maaragtay baasha la yiraahdo galeyda. dadka oo af Soomaaligu waxyaalo farabadan buu yaqaanaa. dad baa u yaqaanaa garow, dad baa waxay u yaqaanaan maaragtay koronkor, dad baa waxay u yaqaanaan maaragtay baal la yiraahdo garaax. af Soomaaligu farabadan yahay aad baa loo yaqaanaa. marka waa baasha burburan ee cuntada la cuno ee la raamsado. caanaha waan ku iibiyaa anigana waa la ii keenaa waan ku iibsaa dib baan u sii iibiyaa. shaaha waan ku kariyaa meesha. marka meel aad iyo aad u wanaagsan weeyaan. aad bay u wanaagsan tahay. ahmiyadda Soomaalida way fiican tahay. meeshan waa meel isu keenta kilalka oo kale sidiisoo kale meel isu keenta weeyaan. dadku isugu yimaadaa si fiican baa meeshan la isu wadaagaa. dadkana hadda aragtay ee faraha badan nin walba uu leeyahay meel walba laga yimid. marka sidaa darteed meeshan waa meel lagu kulmo oo la isugu yimaado. marka ceelkan waa ceel biyihiisu ay qaraar yihiin oo wuxuu ka dilaa shilinta iyo waxyaabaha qaniinka la yiraahdo maaragtay gendiga daqsi ha cuno. waxyaabaha uu dukaanka ka qaada ayuu xadhaarsima kaga dhigtaa oo ku jeel baxaa. marka caafimaad buu ka helaa oo maaragtay milixdaas waxay ka dishaa waxyaabaha sunta ayay ka dishaa. marka xilliga doogaada oo dhan waa inuu sidaas oo kale meel foog oo aan aqligu qiyaasi kareynin oo de maalintii waaka waxaad qiyaasi 10 kun oo halaad baa jooga maalintii. imika bilaanteedu ay hareeraha inaga joogaan. marka ceelku wuxuu taariikhda ku leeyahay caanaha wuu ku badiyaa, cayilka wuu ku badiyaa marka intuu dhanaha cabo uu ka baxo oo maaragtay xid caleel badan la geeyo sida eego kala barwaaqa. cayilkiisa iyo caanihiisu sida barwaaqadu hadda u badan tahay oo kale xaddu ka sii baxsan yahay neefka ka irmaan. neefka aan irmaanayna waxaa shardi u ah markuu ceelkan ka cabo inuu aad u cayilo oo ceelasha uu kaga bedelan yahay. ciddu markay safar gasho
neefka saga ka caba iyo neefka ceelasha kale ka caba ee ilaa Hargeysa jidka ay wada maraan biyahan iyo maartay ceelkan iyo nasabadiisa waxa lagu sheegaa jidka waxa iskaga bedelo dadka ganacsatada iyo cidda way ka gataan waxayna yiraahdeen neefka saga biyihiisa wataay isba bedelo marka iib loo sii qaado ilaa Hargeysa ama harta sheekh meelaha ugu dhaadheer oo kale marka ceelkan taariikhdiisuna dee waa inta aanu ka soo gaarnay sidaas unbuu ahaa cidur hadduu geelu qabay wuu kaga baxaa haddii uu caafimaad qabayna cayil iyo maaragtay cad iyo caana ayuu u sii kala baxaa isagana ceelasha ugu waaweyn ee ugu muhiimsan kan waa kow Bulaale waa laba ceelka la yiraahdo Dhoobaale asagana waa saas oo kale weey laakiin sida labadani ay u sii caanbaxsan yihiin asaguna Dhoobaale ahayn haddana waa ceel nasaba marka ceelasha kale way badan yihiin oo iyaguna de way jiraan laakiin ceelasha koow iyo laba la oran karo waa inuu Bulaale iyo maaragtay sagaga oonyooda labadaba oonyood bay naanays u leeyihiin ceelka la yiraahdo Dhoobaale oo isagana aan inaga fogeyn oo maaragtay xagga nogabta hoose yar ah saddexda ceel baa waxay si gooni ah labana ay koow iyo laba koow isla yihiin ka labaadna Dhoobaale uu yahay ceelasha marka taariikhda ugu dheer leh ee aan soo gaarnay dee ilaa aabayaagwana iyo awowgiisii kale sidaasay taariikhdoodu weligoodba iyaga soo ahayd isma ayna bedelin waxaa la odhan jiray markii ceelka sibidh lagu sameeyo ama maaragtay dar sibidha lagu sameeyo isbedel buu yeelan doonaa baa la dhihi jiray laakiin waxaa ma yeelanay nasabadiisu waa sidii geel weegabkii sidii buu u xidhayaa caanihii sidii buu u badinayaa cayilkiina sidii buu u badinayaa waa la dayactiroo si fiican ayaa loo galay qarnigii hore geedaha lagu xidhi jiray oo karkaaro wax la yiraahdo lahaan jiray qabaal baa la soo qori jiray oo qabaalkaas oo darkan miisaankiisa aan lahayn ama inta halaada ka cabi karta aan lahayn oo geed la qoray ah ayuu lahaan jiray ama se dar dhooba ah baa la sameyn jiray laakiin hadda horumar baa laga gaaro ceelkii wuu ku dumi jiray dadku iyagoo qodaya ayuu xidhaygaasi ku dumi jiray qaar baa ku dhaawacmi jiray qaar baa ku laan jiray waa laga ma talakada iyo dhibaatadaas iyo halistaas markii hore lahaa hadda laakiin waa la soo xidhay ceelka salkii baa laga soo xidhay waa la baneeyay dar sibidha loo yeeray sida aad u arkaysaan de biyaha iron baa wadaanta lagu sii deynayaa de waxa galaya markiiba 20 halaad baa galaya dadkii cidda waraabsanayay horumar ay gaadheen oo dhinaca waraabsiga geela iyo xoolaha ah oo hawl yar baa sibirkan iyo ceelka oo la soo sameeya waa nidaam iyaga u casri ah xoolo dhaqatada hadda oo aad u fiican gaawa lagu shubi jiray oo gaawaha dakhar ka ceelka salkiisa ku jiro ku fakan jiray madaxa bururi jiray kuwa dhexda mid buu sii dhaawici jiray way mar walba waa la isu gani jiray oo de waa dhaawacaas isagana matala dhibaatadaas ka jirtay dhibaatadii hadda waa laga reestay waa wadaan hadday goodo bahal yaro bir oo godan baa xarig lagu xidhayaa aayar baa lagu soo qabsadaa laakiin dhibaatadii gaawihii iyo ceelkii dumi jiray iyo waxyaabahaasi hadda waa lagaga kaaftoomay waa laga reestay waxaan u maleynayaa dee tanna wax ka casrisan un baa soo socda oo sida tan la lulo oo kale iyo nidaam casri ah iyadana waa looga bedeli doonaa wadaanta laftigeeda baan u maleynayaa haddii waqtiga dee casriga uu sii bedeli doono oo iyadoo hal ruux kaliya waraabinay meesha hadda ama 3 nin ama 4 nin ay ka shubayaan labada wadaamood waxaa dhici karaysa tan la lulo ee handi bamka la yiraahdo in loo bedelana iyadana waan sugaynaa oo way dhici doontaa hal shakhsi uu waraabiyo marka taariikhda ceelku iyo nidaamkiisa biyuhu waa sidaas ceelashuna waxayna isugu mid ahayn ceel aan Bulaale ahayn ama aan sagagtan eega aynu joogno aan ahayn oo de maalintii ay 10 kun oo halaad ka cabaysa dhanaha maalintii ay 10 kun oo halaad ka cabayso ceel kasta baa haade lama helayo